وحتى إسرائيل دنداورو الأقبال يرسيدي دوغيك بحيا كويتو إسرائيل وليقا كاكتايو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا لهيga Soomaaliyeed inta beeshkayga Yusra Tube ku xiran iyo inta idaawan doonta ama maqli doontaba ku soo dhawaada beeshkayga Yusra Tube bacda salaan qiimo iyo qaayo mudan walaalayaal maanta waxaan sidaa qodob xasaasi ah maanta waxaan sidaa qodob Soomaali dhexdeeda saqiirkooda iyo kabiirkooda dood ku muran gelisay waxaan sidaa taariikh luntay oo dib aan jeclahay inaan iftiinka daahaniga qaado waxa weeyaan taariikh Soomaaliyeed oo 30 sano ciid hoosteeda lagu aasay ayaan doonayaa maanta muran iyo qaala iyo buuq baraha bulshada dhinac walba ka qabsatay inaan maanta tooshkayga ku ifiyo nila wadaago waana soo diyaariyay waxaana nigu daadihin doona anoo ah Yusra Cadeey walaalahayga Soomaaliyeed aan diinta islaamka wadaagno midnimada iyo jismiyadana aan wadaagno ku soo dhawaada beeshkayga Yusra Tube mar labaad walaalayaal waxa jirta hadal heen ayaamahan baraha bulshada dhex wareegaysa laakiinse taariikhdeeda aad moodo caad yar inuu naga saaran yahay aad moodo inay dhaxal ahaanba inaanan ka dhaxalin waalidiinteena si kastoon taariikhda dad sheega Soomaaliyeed aan nahay haddana culimada ku takhasusay taariikhda dunida iyo jismiyadaha waxay qoraan inaan daacaddan igala wadaago aan ugu talagalay maanta aan soo diyaariyana wax badan bulaha bulshada dal iyo dibad waa maqalnaa dadka la heeb sooca maxay yihiin dadka la midabta koora maxay yihiin dadka laga sooca Soomaali maxaa loo soocaa maxaase la isaga sakiyaa maxaase loo guursan waaye maysan ahayn dad diintana la wadaaga maysan ahayn walaalaheen nagu dhaqana maysan ahayn dadkan isku jismiyadanahay su'aalahaas ayaan jeclahay inaan qodobadeeda ka jawaabo maanta aan taariikhdeedana dadkan aan soo qotan galo sidaanena u bilaaban doontaa dhagihiina aad amaahiya Soomaali weynay dadka laga tiro badan yahay ee ku dhaqan dalka Soomaaliya aqoonsigoodana uu yahay Soomaali kuna luqeeya luqadda af Soomaaliga qaasatan laajooyinka kala ah maymayga iyo af waqooyiga deegaan ahaana ka dega deegaamada Soomaaliyeed kala ah Jubbada Hoose iyo Shabeellada Dhexe waxay u qaybsamaan laba jismiyood labadaas jismiyood kala ah laba fir midna waa madhibaan oo micnihiisu yahay ruux aan dhib badnayn ama shidada ka maleegan mid kalena waa mushunguli waxay Soomaali weyn u taqaano laakiinse ku magac dheer Soomaali Bantu taasoo ay ka dhigan tahay Bantuuga inuu qaybo badan Afrika ka dego kan Soomaaliya degana ba Soomaali Bantu isku yaqaaniin anaka ahaana Soomaalinimo aan u naqaano mushunguli oo micnihiisu yahay shaqaale ama ajnabi ama adoon uu kala yahayna micnihiisu marti mowqif u timid hadaf qaas u timid xilliyo kala duwan labadan jisiyad oo aan doonayo walaalahayga qiimaha iyo qaayaha iga mudan Soomaaliyeed inaan laba u kala dhigo aan hor ahaantii qaybta koowaad aan doonayo faraca ama firka mushunguliga inaan maanta soo qotan galo taariikhdooda Soomaali mushunguli waa qowmiyad taariikh dheer ku leh dhulka Soomaaliyeed ee Soomaaliya farac ahaantooda waxay dhulka Soomaali u yimaadeen sababo kala duwan ayagoo xilliyo kala duwan soo cagdhigay deegaamada Soomaaliyeed ama gabi ahaanta dalka Soomaaliyeed sidii taariikhda dunida qorayso hor ahaantii 3,000 sano ka hor ayay soo cagdhigeen qaarkood kuwii ugu horeeyay dalka Soomaaliya waxayna u soo cagdhigeen wax kala ma ahee walaalahayga qiimaha iyo qaayaha mudano
waxay ahayd taariikhda markaas xiliyadii adoonsiga ama midabka madowga lagu kala iibin jiray dadka cadaanka. Waxay soo cagdhigeen hor ahaantii xeebaha Soomaaliya ayagoo iibsiga dadeed ama xiliyadaasi adoonsiga wadamada isdhaafsiga ka yimaaday laga keenay dalalka Cameroon, Nigeria, Tanzania, Mozambique iyo Malawi. xeebaha dalka Soomaaliya lagu beecin jiray Soomaalida ay baxsan jirtay kana sii mashraxada dirto kasii baxsan jirtay dalalka Talyaaniga, Ingiriiska iyo qaasatan Carbaha, taasoo sameyn jireen labada fir ee Soomaaliyeed kala dega Soomaaliya una u dhashay asal ahaantii Soomaali oo lagu magacaabo qaybna sabtoo ah dad beeraley ah oo beerta ka shaqaysan jiray iyo Soomaalo ah xoolo dhaqate. xilligii gumeystaha markii la galay kadib oo adoonsigii dadka ay joogsadeen iyo kala iibkii dadeed Talyaanigana uu ka rookeeyay geeska Afrika dad dambe in lagu kala beecsado. waxay dhacday dadkan inay la iska dhaafo dib loo celino ay dalka Soomaaliya wax ka qabsadaan. firkan mushangeliga oo ku faracay Soomaaliya qaasatan Jubbada Hoose iyo Shabeellada Dhexe deegaan laga siiyay shaqana loo siiyay ayaa waxay sameeyeen dadkoodii ay dib u dawaan galiyeen dalalkoodiina dib dalxiis ugu tageen xorinimadiina ay u faaftay taasoo dhacday markaa inay shaqaale ahaan u yimaadaan dalalka Soomaaliya u soo galaan xilligii gumeysiga kadib. taariikhda markay ahayd 40meeyadii 1940kii dadkaasoo shaqo loo keenay inay beerta falaan dadkan la yiraahdo firkooda ee Soomaaliyeed sabta oo ah dad beeraley ah Shabeellada Dhexe dega iyo Jubbada Hoose kuna luqeeya luqadda Maaymaayga laajad ahaan International Somali Mahaytiri ku luqeeya Soomaaliga hadeer la qoray xilligii Siyaad Bare. dadkan oo firkoodii batay oo laakiin markii dambana ay dhaheen mushangeligan nagu wadiin oo ka dhigan shaqaale ama adoonsi ama ajnabi intaad naga dhaaftiin firka Soomaaliya ka dega inaan nahay Bantu bayaan aqoonsanaynaa. dadkan oo loo ogolaaday qaasatan inay dalna la wadaagaan waxna la qaybsadaan nagu dhaqmaana taasoo Soomaali iyo saf Soomaali ay laakiin ku heshiyeen inay ajnabi la midab soocay inay yihiin oo ay u yimaadeen inay beer dhaqata yihiin inay rabaan nolosha inay la wadaagaan laakiin diidaya inay ku firaan ama inay jismiyada la wadaagaan oo ay ku dhaxmeermaan ama sidaad u taqaaniin aan u dhigay Soomaaliyeed inay la midabta kooray loo midabta koorana inay ku farcamaan Soomaalida ay dhaxgalaan laakiin la diidanayn dadkan oo diinta Islaamkana loo bandhigay inay qaataan oo hor ahaantoodii ahaa dad gaala 3,000 sano ka hor Soomaali iyo sab oo ku heshiiyay dadkan aan isku diinta ahayn dhaqmi meena dagaankeenana noo degnaamayaan shaqaalana nooma ahaan doonaan haddayna diinteena qaadanin oon isku diin noqonin. dadkii mushangeliga ahaa waxay go'aansadeen inay qaataan diinta Islaamka dadkan Soomaali weyn la yiraahdana ay la mid ahaadaan ama isku diin ay ahaadaan oo weygii ay laga codsaday dhalaanka dalkii ama firki dadka u lahaa dalka ama u lahaa dhaladka ahaa dalka lahaa inay qaataan diintoodii. taasna waxaan ka aragnaa ilaa haddeer wax aadiyeen inay tahay adduunyada oo rabo qof kasta oo dhalada haddaad u soo martiyaysa adiga maanta Soomaalinimada aan isla wadaagno oo dhageysanaya ama beeshkayga ka qayb qaadanaya programkayga aad ogtahay maanta dal shisheeye hadaa aado inay qof kastaba uu dhalada dalkaas uu joogo kugu dayayo inaad isku diin noqotaan si kastoo isku jismi aad ahayn.
haddaan intaas ka soo qotan galo walaalayaalow aan hore usii dhaadhaco dadkan suushugeliga la yiraahdo waxay bini'aadanba waxaa la yiri meel suug uu ku dhalo oo ku firo ku faafo wuxuu jecel yahay inuu gabi ahaanteedaba yaa uu dhaco ama uu rogo oo asaga calankiisa ka taagto taasana u suurtagelino Soomaali sab iyo Soomaali ay gacan isqabsadeen oo dhaheen dadkan waa naga midab soocan yihiin ma aha waa isku diin isku midab waanan isku dhaqan ahayn dhaqankeena iyo firkeena iyo sinjiyadeena waxaan nahay bedeli meeno guursameynana taasoo ay tahay wax caafimaad ah waxaa jirta qayb la isguursan karo ilaa iyo xad adduunyada san ka warheeno ama carab Asiatis ahaw ama indhayar Asiatis ahaw ama American xataa dalkii iyo dadkii samcadeedu rogay oo dhacay cadaana ahaw ama galbeedka ahaw dadka soo jeeda qaarada doonta dunida ku noolow adiga maanta Soomaaliya oo daawanaya ma jecelid magaca awoowayaashaada iyo firkaagi inaad ka cabtirtisato dad kale aad ku wadaagto wax la wadaagto magacaaga meeshaas ku dilmo taasoo ay ka duulayaan ayaamahan dambe mushangeliga ay aad u ataagayaan ee calaamado badan ama dhacdooyin badan sidaan markii ugu dambeysay aan arkaynay aabaha ama awowga Soomaaliyeed cilmiga adduunka ku taqalusay ilaa iyo professor dhimo ama macallin noqday Ingiriisha jaamacad ka dhiga ka astakoonayay dhalaanka Soomaali sida u midabta koorayaan midabta koorka hadii lagu yiraahdo maanta adigoo Soomaaliya qurbo ku nool waxaa tahay qof kala ama waxaa tahay dad nooc kala oo noo yimaade ma aha midabta koor ee waa xaqiiqda adoo lagu tusay xaqiiqadana iyo runta Soomaali way ka weecataa intooda badan dalaankooda dasho ha ahaadan dad dalka u dhashay ama dad dalka soo martiyayba dal kastana waa la soo martiyeeyaa Soomaali dunida kama maqno Soomaaliya waxay ka mid tahay geeska Afrika waxay ka mid tahay dal ka mid ah dalalkan dunida hadirtaan Ilaahay ku abuuray dad umada adduunka ka mid ahna way tahay waana lagu farcamay sidii dunida kaleba lagu farcamay sidaan ahaataba Yurubta qaarkood hadaad aragto qaarada Yurub yaa iyo aragto Afrikada dadka laga keeno ajnabiga shaqaale u yimaadeen maantana way ku faafeen way ku bateen ajnabi ahaan heer Yurub muslinkooda iyo gaaladoodii waa lagu faafay haddana waxay soo istaagan yihiin xataa carabta ha ahaatee igu waxay la qaybsada haddaad ka timaadeen indhayarta Aasiya haddaad ka imaateen Yurub haddaad ka Ameerika ka imaateen ama Afrikada muslimka ama gaalka ka timaadeen ila shaqaysta dalkan ila dhisa waxana ila qabsada deegaana iyo aqoonsina waan siinaya laakiin firkeyga carab bedel meesin taas ay hiigsanayaan nasabka iyo sida u taqaanin dadka aan dalka loogu yimaado ee Soomaaliyeed oo doonaynin inay dadkan jismiyadan mushangeliga ama hadda Soomaali bantuuga ah qaybta bantuuga qabiilka la yiraahdo oo Afrikada ku faafsan oo qaybna ka dega Soomaaliya ee Soomaalida ku magac dheer yihiin mushangeli ay diidan yihiin inay fir la qaybsadaan taas ay tahay caafimaad bini'aadanka inuu dhooro samcadiisa iyo uu dhooro inay asaga la dhaqan rogin ama aan dhaqankiisa uu ka tagin waa caadiyan waa bini'aadanimo inaad magacayaashii awowga iyo abtiriskaagi aad ka leecanin oo uu jiro adduunka uu saameyn ku yeesho dalkii Ilaahay ama ciidii Ilaahay kugula talagalood ka soo jeedo lagaaga rogin waxaan aragnaa maanta Ameerika Australia iyo qaybo kale adduunka ka mid ah oo dadkoodii firkoodii la baabi'iyaba taas oo Soomaali ay ku ataagsanayso qodobkaas saas darteedna ay dadkan ajnabiga Soomaaliyeed walaalahayna oo muslimka maanta diintana la wadaaga oo nagu dhaqanna yaa oo nala shaqaysta ama wadanka noo dhisay wadankana shaqo badan oo qabtay aan diideyno inay ay firkeena tirtiraan saas darteedna aan u diideyno dhinaca guurka inaan guursano laandheere haddaan niitaato walaalayaalo Soomaali iyo laangaab waxay ka dhigantaa laanta gaaban firkeeda gaaban oo ma aha dalkii dadka u dhashay
laanta dheerna firkeeda dheero yaa oo xididkeeda dheero waa dadka dalka u badan u dhashay dad ahaana haddii la fiiriyo qofku ka dhul weyn yahay uu ka badan yahay sidaan u aragno cilmiga adduunka lagu takhasusay haddaan fiirino cilmi ahaan duniya iyo aakhirabana waxaa weeye dadkay ka badan yihiin ay dalka u dhasheen maalintii dadkaas yaraadaana waa maray suulayaan dadnimadooda iyo firkoodaba taasoon aan diidanahay haddana dadkan mushangeliga mar walba waxay soo hadal hayb qaataan inay la cunsuriyeeyo la midab sooco ay ku astaagayaan inay ku dhaqmaan Soomaali ayagoo Soomaali bantuu ka ah siday sheegayaan oo bantuuga Afrikada nooga yimaada ah ayagoo taariikh ahaanna dhahaya mar walba waxaan nahay dad Afrikaana ka soo jeeda Afrika maadaama ay heeb qaadanayaan Soomaaliya inuu geeska Afrika yahay ee qaaradda Afrika uu ku yaalo saas darteedna dad Afrikaana ay yihiin dadkan sabta iyo Soomaalaha ee Soomaaliyeed ee magaca Soomaaliya ay wadaaga la yiraahdo oo dhaqan iyo diinba loo yaqaan waxay sitaan la og yahana xoolahooda xataa Allah ha ahaatee ri'ida madaxda madow inay adduunka kala astaamahooda uga duwan tahay iska badaya Afrikaane ee leeyihiin Carab ay ka yimaadeen dadkan Soomaali asal dhaladka ayagoo ah Soomaali Carab ma aha walaalayaalo taasna waa qotan gali doona maalmahan kamid ah soo socda qodobadeedan ku soo hadal qaadan doona waxay ku keeneen magacaas Soomaali ma aha Afrikaan daarada Afrika ilaa ay dhul naga siiyo dad Soomaaliyeed baan nahay waagii horena sidii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam dhamaantiin intay dhageysan doontaba ku saliya nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu u yaqaanay waxa loo yaqaanay Soomaali dhulka xabashada inay tahay al-Xabashi laakiin xabashada kala fir badan sidii hadeer ilaa iyo hadeertan aan ka aragno sidii dhulka Itoobiya ma aha Itoobiya kaliya waa Suudaan soo galaysa oo Soomaaliya soo galaysa oo Itoobiyaanka maanta qabiiladoodii kala go'aya soo galaya marka Soomaali waa dad jiray waa dad Soomaali iyo sab u kala baxa sidaan ni raba inaan nigula wadaago walaalayaalo dadkan mushangeliga oo maalin walba yeelaya oo sameynaya oo dhacaya oo kufaya oo dhulka isku sii deynaya oo raba inay ayagoo marti aha wax walba hadaad hunguriga bilaadanka siisay bari wuxuu ku leeyahay markuu soo kaco shilinka ma dhadhamin xoolahaaga shilinka ma taaban waxaaga aniga igu daneystay aniga kugu soo marti soore gurigaagu ku leeyahay hadii loo baahdo sida hadirtan ay sheegayaan fir ahaantooda boqortooyada ay sheeganayaan sidaan ognahay aan taariikhda ku haynana boqortooyo hal qodob Soomaaliyeed ay u sugnaatay kana ahaa dalka boqor Ilaahay yaa boqor ah duni ahaan sidaan ugula jeeday iyo dad ahaan iyo Soomaalinimo taariikhdoodana insha Allah kuwaas waa qotan gali doona oo Soomaaliga dhaladka boqortooyadii Soomaali jiri jirtay ajuuraan boqortooyo kalena Soomaali meel uga ma qorna adduunkana muuse ka qorin laakiin gumeystaha wuxuu hogaamiyay ilaa iyo markaan gumeysiga ka baxnana waxaan sameynay qaybtii dhibka badneedna waan iska kaxeynayo waxaan siinay Yurubta galbeed oo geeyay maalma hadeertan sida arkaysiin Soomaali buntuuga hadeer ku badan qaaradda Ameerika la geeyay loo tarxiiliyay samafalna ay u sameeyeen dadkan hormaray qaarna waa noo hareen gumeysihii kadib oo shabeelada dhexe iyo jubbadana degnaan jireen magaca ahaana waxaan u naqaanay dadka la yiraahdo mushangeli si kasta ay haataba walaalayaal hadeer aan arkayno qurba aan joogno Soomaali firkeeda hadaan nahay waxaan aragnaa hadii la dhaho ajnabi inaan xanaaqayno oo dadkii mushangeligii dabeecadoodii la soo baxeeno meel walbo ajnabi oo ku farcamana sida waa dabeecad lagu yaqaan qaasatan ajnabi kasto meel ku farcama la yaabi mayno laakiinse waxaa jira waxay tahay baraha bulshada ayaamahan isqabsatay oo taariikhdii maadaama dadkeenii hore ay noqdeen dad iska gaboobay ama dadkii cilmiga bartana ayna ahaynba dad baraha bulshada ku badanoo
sidoodaba dadka iska shaqaysta ee Soomaali 30 sano dhulka iyo abaartii ay haleegtay oo ayakii islaayay oo dhiig isqobay oo ayakii isku dhiig baxay ayaa waxa dhacday walaalayaalow inay taariikhdeeni xoogaa u mudacad inay gashay laakiin ma sha Allah noo deystay dadka hormaray ayaa wili taariikhdii iyo gumaystayaashii Soomaali heeya dadkii aqoonta u lahaa Soomaali firkoodii meeshay ka soo jeedii cidii marti u tahayba kala saari kara taasna waxa weeye maantay qodobada aan la wadaagay walaalahayga qiimaha iyo qaayaha badan ee Soomaaliya kalaan raba wax yar inaan iga qotan galo walaalayaal Soomaaliyeed waxay tahay mushangaliga la firka la yiraahdo Soomaali ku farcamayo Soomaaliya ay digdirin sharaf iyo mudan iyo gogol u fidisay oo dhulkiina qayb ka siisay ay tiraada deegaanna waa ku aqoonsanay shaqana waa ka heli kartaa dalkayga waana ka shaqaysan kartaa xoogaaga maala kartaa inay maantay ay yiraahdaan Soomaali ay ku eedeeyaan nama soo dhaweenin waa dad anaka noo soo martiyay wadad nacusuriyeynaya wadad aan firkeenaba nacab wadad anakana midabta kooray ay ku eedeynayaan ay ayakana wanaag iyo dad shaqaysta xoogooda maasho dalkii dhisay inay yihiin isku tilmaamayo taasoo laakiin si aan xaqiiq aan ku fadhin maadaama ay dadka hadii qofka walaalkaya oo aad hadhooti ku diin noqotay oo ku midab tahay ku soo dhaweeyo oo diran ku fidiyo maanta sidaan aragna cadaanka gaalka diran ku fidinaya adiga walaalkay Soomaaliga dhageysanaya oo shaqo ku ogolaanaya dalkiisa kugu xukumayo maadaama aad wax walba ila qaybsato wax kasta ay la wadaagto iga mid ka mid dhigay ya ha igu faafin ku leh ku guursamaaye ha i guursanin aan isku midabnida noqonin laakiinse waxa doonta waan ku ogolaa adna ii ogolo dalka ina i dhisto canshuur isoo galis aan ka qaado xoogaaga wax iga siisid anigana waxaan qudkayga ay ila qaybsanayso taas oo adduunka dhan mucaamilka adduunka uu yahay Soomaalina ay qowmiyadan mushangaliga sidoo kale ugu la wadaagtay laakiin garashadoodii ay yaraatay ay maantay baraha bulshada dalkoodii iyo dadkii u soo martiyeen ay dalkii lagu casuumay maadaama uu cufka galay 30 sano la soo dhaafay ay ku astakoonayaan daciifnimada ay ku arkayaan ay doonayaan dalkii inay la wadaagaan dadkiina ay midab rogaan taasoon aad uga xanuunsanayna haddaan Soomaali dhaladnahay aan ka astakoonayna qodobada dambe insha Allah ayaan si qotan gali doona mushkiladaha aan ku qabno dadkan firkan mushkiliga la yiraahdo iyo sida aan lagu xalin karo oo ay dhigayaan culimada taariikhda iyo jinsimiyada ku qool leh xalal badan Soomaalina la rabo in laga gaaro xagaas ahaantaysa sidoo kale waxaan soo bandhigi doonaa inay qaybtan kale ajnabiga oo madhibaan kale yiraahdo madhibaha ama uu yahay micnihiisa qof aan mushkilad badnayn inuu yahay waxa ay sida ay taariikhda Soomaali ku leeyihiin sidoo kale aan taariikhda iyo gumaystaha sidoo kale aan soo bandhigi doono adiga Soomaaliga maanta i dhageysanaya cadaad igu xirantaa oo dhanbalaalkana ku shidan yahay ma sha Allah tafadal like saar hadaad barnaamijyadan aad xiiseyso oo rabto haddii kalena aad igu xirneen walaalkayga Soomaalinimada ama ajnabi ahoo ama dhalad ahoo walaalkayga diinta islaamka ila wadaago Soomaaliyeedna aad xiiseynaysi qodobadan aan hadeer soo bandhigay aan doonaysana aniga iyo dadkayga igu xiran inaan naga mid noqotana dhanbalaalka furo farta guduudan taabo lacagna ma aha way igu xirnaan doontaa like-na saar hadaa ka heshay dhamaantiina Soomaaliyo idil dal iyo dibad waxaan iga tagay anigoo Yusra Cadeey ah salaanta ugu qiimaha iyo qaayaha badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh